محمد يا رسول الله صلى محمد يا رسول الله صلى عليك وسلم المولى محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوكالمي ولاكا كليك سي اي ودي رجلسو وقصوين كيني تحناها سويالك سوبنا صلى الله عليه وسلم قيبتي halka waxa kaaga cad inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala doonayn in waxigiisa cid uu ku kala sheegto ama dadka qaar ay yiraahdaan waxay waa kutubtii iyo falsafadii hore qaarba in laga soo qaatay waxa runtii xusad mudan in arrinkaas ay islaamka ku dareen qaar islaamka ka soo horjeeda iyagoo og inuu subhanahu sallallahu alayhi wasallam wax qori jirin waxna akhrin jirin sidoo kale uu ka fogaa waligeen la kulmi dad xambaarsan afkaaraha kale ee meelaha kala duwan laga soo minguuriyay bal waxaad is weydiisaa marka hadii subhanahu sallallahu alayhi wasallam laga soo dhaxsaar la meelihii xudunta waayid afkaariyay falsafadii iyo baxnimooyinkii jaray xiligaas taas waxa kamid ah hadii risaalada islaamka lagu soo dejin lahaa Shaam iyo Baytul Maqdis qolyaa dhihi lahaa waa nasraaniyadii iyo yahuudiyadii oo xoogaa naashnaashay isku soo wada duub risaalada islaamka wuxuu Allah subhanahu wa ta'ala ku soo dejiyay dhul uu soo ka jirin sharci iyo qaanuun midaysan marka waxa ka jiray nidaam qabiil oo kala duwan qabiil kasta wuxuu lahaa kaaba qabiil iyo xeer dhaqan u gaar ah kaaba qabiilayaasha ayaa lahaa golayaal ay isugu yimaadaan halkaas ayayna ku gorfeyn jireen xaaladaha jira run ahaantii nidaamkaasi wuxuu ahaa nidaam wada tashi ku dhisan maxaa yeelay dad badan ayaa qayb ka ah nidaamka go'aan qaadashada